reerkayga waxaa ugu dambeysay sanadkii saddexaad haye telefoon inaan ka hadlo ها oo aan dhaw reerkiisee yahay ها ma ahay ilma saarin صدح سنة 3 sano haa ilma saarin هذا إنسان صاحب يال قربتي وحنا لا شوقنا من كان ومقع استلي هذا برهان وأنا جاي نكى سمتر بعديها جيلان نقدم بيوتشي دم بلا شوكتا مشاني وديجان كدنقريو دقمة الدنقرية كتر سنة هاي ومية جادا برا سلو waa soo dhawahay walaal هاي xamse waa kugu dhawahay waa fiicana ما شاء الله جيلان لا شوكتا geelana kala la joog هاي ما شاء الله hadda loo naaday naqaan meeshan ka degay halkan uu fadhiyaa جيل ماشي مركز روب انت قبطي roob waxa qabtay daruuraha laba daruurood هاي baa qabtay والله ضرورها انت وي daruurahaas waa laba daruurood qotonkoodu adigu arigu waa ku gaajo beelay geelna waa iska cuna جيل مسكع abaartira waa lagaga raystay هاي waa lagu barwaaqo ilaahay baa mahad noo naqa ما شاء الله hay marka ma markii la yiraahdo ma xididool baa laga degay majiirwanaad baa laga degay ma toonbaa khushu baa laga degay qotin markii la yiraahdo qotin watan markii la yiraahdo meeshaas abaar hore oo abargoysay hore bay ahayd haye nagaarkii baa madoobaday haye cawsna ma bixin haye cawsna iyo rahan midna ma bixin haye nagaarkii oo madoobaday waa xoolo cuneen haye waana ku gaajo beelan waa waliba arigu waa ku gaajo beera geelana waa iska cunaya waa iska caraarsanaya haye waa lagu barwaaqo waa lagu fiican yahay ma sha Allah adigu geelan marka baa la joogtaa yaa kula hay geel aniga geelan baa la joogay waxaan ka soo yaashay meesha la yiraahdo baqbaq baqbaq waa degmada hoos tagtaa baqbaq waxay hoos tagtaa degmada Dangorayo haye bay ka tirsan tahay haye baqbaq iyo uskuro baqbaq iyo uskuro haye raashin buu ku cuni jiray baqbaq haye oo jilaalkii waa la siin jiray haye muddo haddeer 10 beriye buu ka soo maqnaa naqaan buu halkan ku soo gala meel dhow halkana haye dabadeedna galeedii waa laga daayo waa fiican yahay hadda raashin ma cuno ma sha Allah marka intee wiil kula haysaa gala waxa ilaahay laba wiil oo kale baa kula haya laba wiil oo kale ilaahay laakiin ma adaa oday oo geela kor waa laga weyn yahay nin kale uga weyn baa jira aduu reer ma leedahay anigu reer waa leeyahay reerkii ciddi xagee jirtaa wax reerkii baa jira ciid waa dadkii deerta halkaa loo qaaday ciid gulug salki haye gaalkacay halkan ka yeeray haye bi reerkaya hay reerka oo hadee hadda geelan la joogtay xaafadii iyo caruurtii iyo arigii iyo goormaheeda waqti isku heshaan xamsow adduunka ba hadda intii hadda 2 sano ahayd waxa dhacday abaara yar yar oo isdaba jooga haye geedka geelana waa hawl badan yahay oo aad buu hawl badan yahay ninka sanadka madaxa la galana inuu si wasoo noqdaa waa sahal oo si yar wasoo noqdaa haye waxa dhacday roob laan yar yar ah oo muddo hadda 4 sano isdaba joog ahayd hadda sanadka kan sanadkii kulaba ahaa cirgaabu jiray oo wax yar cirgaab meel ka sokaysa buu cabji haye orbogays meesha la yiraahdo buu cabji jiray saaqa bay dacalka isku hayeen haye reerkayga waxa ugu dambeysay sanadkii saddexaad haye telefoon inaan ka hadlo oo aan dhaw reerkiisee yahay ma ahay ilma saarin 3 sano haa ilma saarin laakiin telefoon baan kala hadlaa haye ragga reer magaalka ama miyiga kale oo reeraha hayo ma garanaysaa ila rag waa badan yahay oo ama dhawaan guursado ragii miyiga haya baa reerkii wada marka ragga magaaladan oo iyaga wax la qabo ugu qabsan marka niyow reerka aruur waa joogtaa haye marka guga hadda nuurku haduu nuur barwaaqooba noqdo oo arrada maro oo dhiqaboobo dagal guriga iska tagayay markii geel guriga tago baa reerkaas waqti la isku helaa ninka geela wada iyo cid isma arkaan inta kale ilaahay wala aydaas laakiin waa baadiyo marmar meelaha waa la iska guureeyaa habeen wixii guuraa gabar yar wax laga yaabaa ilaan iyo inaa inta shukaansato ama ku ballamayso hadii aad u heshid laga yaabaa laakiin wax kale ma garanaysaa ballan maxay sheegaysaa waa iska hadal hawl ballaniyo waa hadal waxba gelin macnaha marmar waa iska dhacasaa baa uga baxnaa sheekadu waa iska caadi niyo magaalada markii la joogo ninka xaas kale oo gabadha uu qabo hadduu san habeenkii 3 saac oo fiidnimo imaan buraan guriga hadduu san imaan 3 saac oo fiidnimo reerkaas subaxii waa dagaal in la kala tagana leh ma fahant adiguna 3 sano baa ka maqan reerkii farqiga u dhaxeeyay muxuu yahay dadka aan ku sheega xamsow dadka
ninkan Cabdullaahow ها وكاد dadku horta waa rimiye reer magaal haye reer magaalku waa dadkaas ka hawliyashooda magaalada iska shoogo ninkii wax laga yaabaa inuu shaqo magaalada ku jiro uusan ama safar dheer gelin ama meel kale oo magaalo kale oo shaqo doonin haye gabadhu markii inay wax galaan oo tiraada caaw muxuu ku dhaxay waa dhaxdaa ha waa dhacdo inay maganaysaa ay tiraahdo صح laakiin dadkan reer miyiga ha war ninkan geelii buu kaxeeyo geelii baa meel hebla la galay ha sanadkaana soo noqon waayo abaar baa sii dhacday oo soo xiri waaye muxuuba soo noqdaaba gabadhii sidaasay marka caqligeedu buu fahmayaa cunaysa ninka geeli buu la jiraa xooluhu ku maqan yahay hadduu meelaha ka joogo miyuu kaa maqnaan ahaa waa sax ya marka sidaas baa wax u kala duwan yihiin hadda magaalka waa mulqul miiran reer magaalku haddee waxay mulqulqaya waa dadka hawlyar oo hadda luuq buu ka tusaya oo tan baadiya luuq lahayn hadda ninkan waa la yahay buleeyahay inuu habeen kasta shukaansi aad ka Soomaha waxa dhacda wax laga yaabo inaad ilba saarin meel joogtay waa ay go'an abooba uu kula galaba geeluba wadankii waa libaax iyo ruugu fadhii jireen inuu kula galaba ama baaba ama guri furina uu kula gora ilba saarin ba ha niyahow ninkaana maanta isqabanna waagar ma fahanti waagar waxa isku qabanay geela isku qabateen ba wax iska weydiin haye tulud waxa la yiraahdaa tulud ba isku qabanna waagar ninkaani wuxuu yiri horta intaanan ninkaan wuxuu yiri waxaan anigu aan kala sheegin tulud maxaa la yiraahdaa tulud waxa la yiraahdaa annaga dadka reer miyiga oo xoolo dhaqatada tulud waxay u yaqaanaan bidaan geel baa waxay matalan bay ka muuqanaysaa buurtaas oo kale haye bidaanta geel taswiirteedii baa muuqatay macaarta iyo hal iyo waxay kala tahay ma kala cadda sax nin baa doona noo ibaanaya hadduu doono anagoo meel fadhino laba ah haye labadeenaan oo kale wuxuu oranayaa warinayo geel baa iga baxsaday haye wariyo anagu geel ma arag laakiin halkaa tulud baa looga muuqata halkaa tulud baa looga muuqata baa laleeyahay haye tuludaas hal iyo ratay waxay tahay wili laba kala cadayn laakiin markii anagu noo kala cadahay oo ama oo noo kala muuqato neefku aan hubno ama hal baan dhahnaa ama waa ratay waa si wanaagsan ninkan odagaaba maanta igu qabsaday ma fahanti waa gartay wuxuu yiri tulud waxa la yiraahdaa neef geel ah oo waxa la yiraahdo hal ah oo dhadig ah oo aan rati ku jirin tulud wuxuu yiri kuma jira anaga waxaan ku yiri tulud waxa la yiraahdaa neef geel oo meel kore ka muuqdayo rati iyo hal labadaba waa loo isticmaalaa tulud hal iyo rati uma kala socona waa markay ka fog yihiin uma kala socona laakiin markii aad kala hubisid oo adigu ishaada ku kala hubisid oo ishaadu hayso de waxaad oranaysaa rati weeye neefkaas ama waa hal markii tusaale la yiraahdo kuma qancina yaa markii weydiinaysaa ninkan geela la jooga haddaad aamini weydo walaalle yaa kaloo aaminaysaa marka maya magaciisa muxuu Cabdullaahi aan warkuu sheego adiga day waxa kuu muuqda hadda ratiga halka daaqaya wuxuu kaaga muuqday wadan aan dhaweyn oo halkaas inuu rati inuu hal yahayna kuma kala socona rati uma jeedo hadda ratiga laamiga daaqay geeskiisa ma artaado xoolo ma yaqaan ratiga dhow ha ma artaado laamiga sheeya wuxuu kaaga muuqday wareedhay meel la yiraahdo dhaweyn oo adigu ilaa buraha asku dhow kuma kala socona marka haday bidaan inuu rati yahay inuu hal yahay qof baa ku yimi matalan baa ku yimi baadi raadinaya waxa ku ruuban rubaadi baa iga maqanay wax wala ku muuqanayeen maxaad oranaysaa markii bidaantina waa ku muuqataa ma ogtahay kuma kala socona neef baa halka ka muuqda neef baa muuqda baa oranaysaa wax kala aga basar oo kala ka hooseeya malaha tuludda markii la soo qaato tuludda haan markii la soo qaato oo ilaa ma ogtahay tuludda markii la soo qaato waa waxa soo war tulud baa halka ka muuqata wilina kuma kala socona hadda geela naga sheey Soomaaliyeed markuu geelu jamac yahay waa tuldahaas baa la leeyahay tuldaha ama geela baa oranaysaa ama geela ama tuldaha waa jamac markii hal neef uu yahay hada tulud waa tuldahana waa badan yahay laakiin tulud markii la yiraahdo tuldo iyo tulud baa kala reebta ma tulud markii la yiraahdo waa neef geela waa neef geela wax kasta ha ahaado dadii geela wuxuu rabaa neef geelo hal ما يوحد دونها وحد دونها وحد دونا مات ها أدو مركا هذا أدي كوك كلا سوعان يا هوفتت وهذا وحرنا سا وحوي ورنيف كاس ورتي أما وهل نيو برشة وناكس ولا لا حبس بس ده كلام ولا ميديها ما دعوتها ميديا وأنا وسكر مي بالله لكن تلفون هذا وين عرضه واسوق علينا
waxa la jirtay waa laga yaabaa qayb inuu wato waa la iska balaaya la saahan kuma afqaaniyo soo ma barane waa la iska daadaa wada kullu dadka reer aw kay ha niclaha saanu wataa niclaha saanu baa garaf haybsadaan lama garan karo ka salaaxa balaaya hada waxbay saa walaaqayaan ninkan ya anigu iyo ninkaas kaamirada hayo xariirka saar rag miidiyaha ku jiraan ragga miidiyaha isticmaala waa wali nin xabsan la yiraahdo horta waa ba arkayo gabdho badan isku keenay ninkii ahayd haataan oo ma aqaan ninkaas dhakhtar buu kula isgeeyay anagu ma la soo dhaawacay ma isaga dhakhtarka 4 gabdhood baa isugu yimid 4 gabdhood gabar baa markii hore u timi 4 gabdhood adigu isku masayreen isma la ogeyn inuu wala qabo waa sax markii dambana mid buu ka reebay 3 kalena waa furay waa kula dhigeen marka isagoo guryaha taa waa arkay nin naag isku foodeynaya oo wax dhagaxinaya waa arkay ninka hayda ma aqaaniyo wasagi ma xamsa ha ninkan waxa la yiraahdaa Samatar Baadi baa la yiraahdaa isaguna waa nin jiraayo riwaayadaha ninkan xariirka saar baa la yiraahdaa xariirka saar baa la yiraahdaa waa nin reer Soomaaliland waa adu dhakhtar baata barasho wanaagsan barasho wanaagsan hay barasho wanaagsan sharaf ikram guuleyso walaal Allah ku sharf hay baan rajinaya